iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa Soomaaliland ay ka taariibayaan dhalinyaro tiro badan iyagoo u haajiraya wadamada shisheeye iyo qaaradda Yurub iyagoo raadsanaya inay helaan nolol ka gedisantay hadda ku nool yihiin halka qaarkoodna iyagoo oon gaadhin halkay u hanqal taagayeen u geeriyooda haraad iyo gaaj. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhaliilay habdhaqanka dalada Sooyo maray maanta magaalada Hargeysa gudaheega kula hadlayeen TV-ga caalamiga ee Somali Cable. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Muuse Jaafar waxaan ahay dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa una dhalatay gobolada bari waxaan ii sheegay dalada Sooyo waxaan ka aaminsanahay anigu inay tahay wax ku shaqeystaan dad gaar ah oo u kooban oo magacii dhalinyarada iyo dadkii kala qaatay mid kale looma sinna wixii hadii ay helaan projecti uma sinna gobolada bariga iyo gobolada kaleba mashruucooda soo qaatay wuxuu ku eegay Hargeysa wixii iyagu ay ka tagaan inta ka soo hadha marka waxaan oran lahaa dalad kale oo saddexda gobolada bariga ah hal la sameeyo oo dhalinyaradu ay isu tagto oo iyagu rayigooda cabiraya dadka kale xukuumadda iyo hay'adahana waxa la qabteen dhalinyarada bariga iyo gobolada bariga. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Jamaal Maxamed Geedi waxaan ahay dhalinyarada joogta magaalada Hargeysa ee gobolada bari u dhalatay ururkan aad weydiisay Sooyo way ugu maqaalo ururku waa urur aan inta badan dhaafin magaalada Hargeysa afar qof oo dhalinyarada Hargeysa joogtay iyo intan Hargeysa gudaheeda unba hogaamiya mana gaadho gobolada bariga mana aha urur aan oran karo wuxuu matala dhalinyarada Soomaaliland waa urur NGO yaro khaas oo dad khaas ay leeyihiin weeye namana matalo gobolada barina ma tago mana naqaan wax la matalana maaha. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacayga waxa la Saciid Salmaan Jaamac Saciid Arre waxaan dhalinyarada degan magaalada Hargeysa joogto wax ka baratay jaamacadaha ku jirta haddaan fariideeda ka dhibto ururkan yaraada Sooyo runtii ururkan waxaan ka aaminsanahay inuu urur ay dhalinyaro gaari wax ku maxaafsadaan oo hadii wixii dakhliga wixii faa'iido laga faa'iideeyo ka faa'iideeyaan ma aha urur matala ama u shaqeeya dhalinyarada dalka magac aan jirin way qaateen waxaan lahaa ururkaas dawladdu ka fiirsato hana sameeyso fikradeeda hana sameeyso urur kale oo dhalinyarada wax qabtaan matala lacag qaraxada la geliyo lagu fangareeyaa si dhalinyarada ay horumarkooda uga shaqeynayo isku dubnidooda kamana shaqeeyaan hawlo kale qabtaan oo aan loo dirsan siyaasaddu ay galaan markay doonaan oo xisbiye dawladda ku milmaan shaqada loo dirsan ma qabtaan. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Magacaygu waa Sakariya Maxamed Jaamac dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa dhigtana jaamacadaha magaalada taan riyay ka dhibto daladan leeyahay Sooyo maaha dalad dhaafsan baa Hargeysa hadii dhaxno Hargeysa laftigeedana hayna dafarnimo maaha Hargeysa u dhaxno marka waa hadan riyayga ku soo noqdo daladan ay dhalinyarada yar isku bohoystaan ilaa Sooyo maaha dhalinyaro matasha maaha dalad matasha dhalinyarada Soomaaliland mana aha dalad ama dhalinyaro dhaafsan Hargeysa maaha mid matali karta dhalinyaro iska badaayay aan cidna dhalinyarada inta ku shaqeystay mooyeen aan inta kale magacooda baan aqoonba anaga meel ka aragna jaraadada iyo TV-yada Sooyo afar yar oo nimad soo fadhiyaan gidaar u leeyahay dhalinyarada Soomaaliland nimana matalaan dadna matalaan dadkan yaa been loo sheekeen lagu sheegin. Assalaamu alaykum warahmatullah. Sagaalkii bishii December 2014 madaxweyne Axmed Maxamed Silaanya waxa uu xadhiga ka jaray dhismaha cusub ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Sooyo kaasi oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Hargeysa. Madaxweyne Silaanya oo maalintaasi khudbad kooban halkaasi ka jeediyay waxa uu hoggaanka sare ee dalada Sooyo kula dardaarmay inay daacad iyo dhex u noqdaan guud ahaanba dhalinyarada ku dadsan kayga Soomaaliland. Furitaanka xarunta dhalinyarada Sooyo farxad way beentana ka soo qayb galo dhalinyaradu waa mustaqbalkii dalka waa mustaqbalkii ummadda waa waxa ummaddu ay ku noqoto mustaqbalkooda higsanaysa waxa mar walba dhalinyaradu ay noqoto ayaa ummaddu noqonaysa sidaa daraadeed ahmiyadda ay leedahay waa mid aan marnaba la isweydiinayn waa mid aad u weyn waa mid aanu annaguna aanu ogsoonahay oo aanu qiimanayno oo aanu qadarinayno oo ay tahay
waxaan ula howlgelayno mar walba diyaar u nahay inaanu mudnaanta siino iyaga iyo horumarkooda iyo waxqabadkooda iyo hortalaabsigooda inaanu siino 10kii bishii 11aad 2014 dalada Soonya waxa ay qabatay shirweyne ay ugu yeedhay shirweynaha dhalinyarada Somaliland marka laga yimaado heeso iyo hadallo siyaasadaysan oo halkaasi laga yidhi inay jirin bayaan cad oo ku saabsan dhalinyarada oo ka soo baxay shirkaasi Khadar Kaafi TV-ga caalamiga Somali Cable TV Hargeysa.